nin Bakistaani ah ayaa waxa uu caawiyay hooyo Soomaaliyeed oo dhibaataysan waxa uu u aruuriyay lacag gaaraysa $120,000 Hinda waxa ay la nooshahay cudurka kansarka naasaha ku dhaca lafaha ayuuna u sii socdaa waxa ay degan tahay wadanka Canada shaqadeedu waxa ay ahayd kalkaalisanimo oo ay ku bixin jirtay nolosha iyo korinta caruurteeda waana hooyo single mother ah oo haysata 5 caruur ah oo ay ka mid tahay gabadhan idin muuqata oo laf ahaanteedu qabta cudurka loo yaqaano Down syndrome kaasoo qalqal ku keena koritaanka caadiga ah ee unugyada jirka qofka uu ku dhaco laakiin wax walba waxa ay isbedeleen markii uu hooyo Hinda ku dhacay cudurka halista ah ee kansarku kaasoo sababay inay ka soo tagto oo ay ka fariisato shaqadeedii kalkaalisanimada inta wixii ka dambeeyana noloshu waxa ay noqotay mid dhinac walba ka adkaata maadaama hooyadii reerka kaligeed u shaqaynaysay ay hadda shaqadeedii ka fariisatay maalin maalmaha ka mid ah Hinda iyo gabadheedii xanuunsaneed oo banaanka gurigooda buugaa ku iibinaya si ay